anigoo dagaalamaya dhulkayaga xuma u diidan oo libinku diriraya ha ku daata dhiigaygu taliyaha ciidamada miinabaarista galmudug maxamed cabdi maxamed oo aan kula kulmay magaalada Cadaado taliyaha waxaanu ka wareysan doonaa howlgallo muddooyinkii ugu dambeeyay ka soconayay deegaanada galmudug howlgalladaasi oo ku saabsanaa miinabaarista amaba in miinooyinka laga baaro deegaanada ururka al-shabaab ay kala wareegeen ciidamada galmudug iyo kuwa dawladda ee iskaashanaya taliyaha waxaan su'aalo ka weydiin doonaa howlgalkaasi la xiriiray arrimaha miinabaarista taliyaha maxamed ku soo dhawow VOS TV waan ku dhawahay awoowe waana mahadsantahay horta muddooyinkan intii howlgallada ay socdeen ciidamada ay ku qaadeen ururka al-shabaab ciidamada miinabaaristuna ayaguna waxay wadeen howlgalladaas lagu saarayo miinooyinkaas ay dhulka ugu aaseen oo ay ugu talagaleen inay ku qarxiyaan ciidamadaas Soomaaliyeed oo dagaal kula jira iyo dadka shacabka oo degan deegaanada hadda mudug dagaal ka socda iyo galgaduud intaba deegaanada howlgalkan miinabaarista ah aad ka wadeen maxaa nooga tilmaami kartaa deegaanadaas waxaa ka mid ah deegaankii koowaad oo dagaalku ka soo bilowday ee Wasil iyo Gawaan intii u dhaxaysay ilaa hadda la joogo Camaara iyo Bacadweyn iyo tuulooyinka hoostiga sida Shabeelow iyo tuulooyin yar oo kale oo aad u tiro badan intaas oo meeloodba oo dagaalka ka socday way miinooyin badan ay galsheen oo aad u tiro fara badan laakiin insha Allah badankoodiba waa soo bixinay oo banaanka ayaan keenay miinooyin oo badnayn oo kalena way jireen oo hadda waa dhici kartaa in mataqaana wax kale jira laakiin aan la arkin si guudna baaritaan guud oo aad wadooyinka loogu sameeyana wali ma jiro dagaal baa lagu jira waa tahay imisa miino ayaa soo saarteen hadda inta howlgalkani socday miinooyinka la soo saaray aad ay u fara badan yihiin ilaa 17 xabo oo la soo saaray oo ay xawaaleen ilaa 7 xabo kalena way qarxeen oo waxay la qarxeen dad shacaba oo baawur saarna oo dad badan oo dhashay ka mid ahaayeen marka intaas ayaa jirta xagee u badan oo la geliyay miinooyinka oo al-shabaab ay geliyeen inta aragteen miinooyinka al-shabaab meelaha u badan oo ay gelsheen waa wadooyinka la maro oo lagu imaanayo magaalooyinka ay qabsadeen marka ay difaacanayeen marka waxa u badan waa wadooyinka qaybo ka meelo kale oo ay gelgasheen miinooyin difaacyo ay ka tageen way jirtaa maxaa isleedahay marka qatarta dhanka miinooyinka maxaa ku tilmaami kartaa ee hadda ka jirta deegaanada galmudug qatarta horta miinooyinka galmudug ka jirta way badan tahay ayagu sida ay u talagaleen ma aysan noqon laakiin sida alla ugu talagalay bay noqotay ayagu miinooyinkan ay xireen miinooyin ay u sameeyeen dhagaro badan way marka miinooyinkaas dhagaradaas haddii aan wax ka sheego waxyaalaha ay ka sameeyeen ka mid ah inay badanaa ka soo dhigeen waxyaalo ku qarxiya dareenka qofka bini'aadamka ah oo taabasho ama miisaanka qofka bini'aadamka miisaanka culayska uu ku socdo oo asagoo xataa ku istaagin miino ay miisaanka dartiisa qofka uu marayo ay ku qarxaysaa barakshar waxa la yiraahdana way iska jiraan oo miinooyinka qofka ku istaago oo kale ay istaagaasna way ku qarxaan marka waxyaalo badan ay u sameeyeen sida laakiin ay soo xideen si waxay ahayd ayagu ay u talagaleen ku dhameeyaan dadka meesha deegaanka jooga iyo ciidamada intaba laakiin ilaahay kama dhigin oo sida irigna iguma noqon galmudug qalab ahaan ma u diyaarsantihiin in aad soo saartaan miinooyinka shaqo hore oo ay horay u qaabeen ciidamadu tababar soo qaateen annaga dib naguma hayso dad laakiin shacab ayaa jira oo ay ku istaagayaan oo ku qarxayaan oo kala garan karin laakiin annagu shaqadan iyo wax ay yaqaaneen iyo wax ka sii badanba waan naqanaa waxna dhibana hadda weyn naguma hayso laakiin shacabkaas adaran ku istaagayaan iska jirin saadirta marka anaga wax barnaamij goyn naguma hayso waan u diyaarsanaa inaan wax ka soo qabtaan ay sameeyaan inaan annaguna aan baabino insha Allah taala horta miinada in la soo afjaro waxa ka horeysa qofka aasa in la soo afjaro miinada markii qofka aasa la soo afjaro miinada iyadaas ka soo dhamaanaysaba waxaan la sameey karaa meelihii markaas looga shakisan yahay oo dadkii la soo afjaray oo xawaalay ay ku dambeeyeen in laga soo dhameeyo way mudan tahay laakiin waxa ka horeysa qofka miinada xiraaya marka hore in laga taaluso
sidaa darteedna markaas kadib deegaamadii ay ku xabaaleenna baaritaan guud lagu sameeyo sida fariisamaha ayagu degan yihiin iyo meelaha ay ka guureen iyo meelaha laga qabsaday intaasba. inta hawshan aad ku guda jirteen howlgalladii ugu dambeeyey intaa ku guda jirteen ma jiraan wax dhibaato ah oo ciidamada ka soo gaaray miinooyinka? ma badna way jiraan 2 qof unbaa hadda ku dhimatay oo ciidamada oo miinaas ka shaqaynaya ay ku qaraxdaa. marka wax kale hadda khasaaro weyn oo kale na gaarsiiyaan ma jirto. waxaan rajeynayaa inaan 70% iyaga ka sii aqoon badanna. maxaad u soo jeedinaysaa halkan oo fariin oo aad u marinaysaa dadka shacabka ah ee ku nool deegaanadaas ee al-shabaab laga qabsaday oo fariinaha ku aadan xagga miinooyinka iyo inay taxadar ka muujiyaan? dadka horta waxay isugu jiraan 2 nooc, shacab deegaamada degan iyo shacab la dagaalamaya ururka al-shabaab iyo ciidamada intaba midba fariin baan u farayaa. shacabka deegaanada degan oo ku shaqeyso baabuurta ku wata waxaan leeyahay wadooyinka aad qaadaysaan ha ahaadeen kuwa la maray kuwa kalena isku daya inaadnaan ku dhiiran qaadaan. dadka dagaalka kula jiraan nimanka la dagaalamayana oo isugu jira ciidamada deegaanka iyo ciidamada kalena qof walba oo miinadaas sidii uu iskaga eegi lahayn tabartiisa ama uusan hadduu arko gacanta ula geli lahayna ha ku fukaray ilaa qofka aqoonta ula mooyee. marka intaasaan rabaa inaan u gudbiyo shacabka iyo ciidamada dhammaan iyo deegaamada ka jooga. aad baa mahadsan tahay. wuxuu ahaa taliyaha ciidamada miina baarista ee galmudug taliya maxamed dheere oo aan kula kulmay magaalada Cadaado iyagana warramayay howlgallo muddooyinkii ugu dambeeyay ka soconayay qaar ka mid ah deegaanada galmudug oo lagu soo saarayay miinooyin dhulka ay ku aaseen ururka al-shabaab.